hadlaya magaca xisbiga ha noolaato waxaan halkan ka salaamayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa marka aad maqasho ha noolaato waxa maskaxdaada ku soo degdegaysa ha noolaato maxay u taagan tahay ha noolaato ujeedadeedu maxay tahay ha noolaato maxay higsanaysaa ha noolaato siirta inay ujeedooyinka ku gaarto waxaas oo dhan ayaa maskaxdaada ku soo degdegaya dabcan waa su'aalaad xaq u leedahay inaad isweydiiso ha noolaato waxay u taagan tahay soo celinta qarannimadii sharaftii midnimadii iyo walaaltinimadii ummadda Soomaaliyeed ha noolaato waxay u taagan tahay noolaynta taariikhdii dhaqankii hiddihii iyo soo jireenkii ay ummaddan lahayd ha noolaato waxay u taagan tahay geedkii ay harsan lahaayeen jiilka maanta iyo jiilka berri ha noolaato waa shumacii ifinayay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ee maanta mugdiga ku jiro ujeedooyinka ha noolaato waa ujeedooyin cadcad waa shan ujeedo oo la taaban karo kuwaasoo kale ah kow jirida u saarista shanta cadow ee waaweyn ee lidka ku ah jiritaanka ummaddan ee ay ka mid tahay colaadda ay ka mid tahay qabiilka ee uu ka mid yahay qaadka ee uu ka mid tahay jahliga iyo gaajada ha noolaato waxay rabtaa inay soo celiso walaaltinimadii iyo jacaylkii iyo qarannimadii ummadda Soomaaliyeed ujeedada ha noolaato waa kobcinta dhaqanka diinta iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed ujeedada ha noolaato waa abuurista bulshahoodana qaran haybad leh iyo hanaan dawladnimo oo waara sidee lagu gaari karayaa ujeedooyinkan quruxda badan ujeedooyinkan quruxda badan waxa lagu gaari karayaa marka adiga iyo anigu aan ka wada shaqeyno si aan u helno qaran ummad shacab iyo dal cizi iyo karaamo ku leh sidii uu shalayba ugu lahaa adduunka haddii aynaan ka wada shaqeyn mugdigan baa jiraya haddii aan ka wada shaqeynana waynu gaari karnaa ujeedooyinkan cadcad waa ujeedooyin nabadeed wadda nabadeed baan qaadaynaa waddadaa nabadeed baan rabnaa inaan ku gaadhno laakiin qof laba saddex ma gaari karaan haddii aynaan wada shaqeyn ha noolaato waxay u baahan tahay qof kasta oo Soomaaliyeed waxay u baahan tahay xoog waxay u baahan tahay midnimo iyo in gacmaha la isqabsado si looga miro dhaliyo in dalkii Soomaaliya lagu soo celiyo karaamadiisii marka aanu taariikhdii dib u raacno ee aan dib u fiirino sidii ay ku gaareen halgankii adkaa leegadii ama iswaayashi ee ay ku hanteen calanka iyo dalka iyo qaranka marka aan dib u fiirino shucuubta adduunku sida ay qaramada maanta ay haystaan ay ku gaareen sidaasaynu ku gaaraynaa nabad baynu ku gaaraynaa walaaltinimo baynu ku gaaraynaa iskaashi baynu ku gaaraynaa waa saas sida aynu wax ku noqon karnaa waa sida aynu wax ku yeelan karnaa waa sida marka aynu iskarabsanno ee gacmaha isqabsanno ee walaaltinimowno ayaynu ujeedooyinkan gaari karnaa ha noolaato waxay u baahan tahay qof kasta oo Soomaaliyeed waxay u baahan tahay xoog waxay u baahan tahay midnimo iyo in gacmaha la isqabsado si looga miro dhaliyo in dalkii Soomaaliya lagu soo celiyo karaamadiisii